بسم الله الرحمن الرحيم. درسيني لبعض waxaanu maanta ka bilaabi sida macluumaadka loogu diiwaan geliyo barnaamijkii ASCII timetable inagoo mari doona laba dariiqo. dariiqada koobaad ayuu maanta cashirkeenu uu noqonaya oo ah sida loo diiwaan geliyo maadooyinka iyo fasalada. intaa ka horna marka hore iskuulka magaciisa waa in la qoraa. arrintaas ay maanta darsigeena labaad uu ku saabsanaan doonaa. balan soo kiciya marka u horeysa barnaamijkii aynu ku qoranay jadwalka sidaan u soo kici doonaa sidaan u noqonaya markuu soo kaco. sidaa markuu soo kaco marka u horeysaba qaabkaasuu noqonaya. dabeetana waxaanu ku dhufanana halkaa inshaa jadwal jadiid kaasaan ku dhufanaya. daaqadaas ay soo baxaysa iskuulkii ayaan magaciisa ugu horreysiinaya ismul madrasa. anigu waxaan u bixinayaa tusaale ahaan madrasatu البحرين. حصصك حصدها la dhiganayo tiradoodu inta noqonayso 7 sano deyn hadan doonaan kan ka bedelaya oo weegii 7 xisaab la dhiganaya oo iskuulku qaadanaya 5 4 6 8 hadba inta doonto halkan aad ka maamulaysaa. ayaamaha iskuulka la dhiganayana iyagana halkan aan ka bedelanaya. anigu 5 sano isaga daysanaya. halkan waxaan ka bedeli doonaa ayaamaha fasaxa uu noqonaya inaga hadaynu hargeysanahay ee Soomaaliland waa khamiista iyo jimcaha ayaa u badan inaynu fasax noqono. haddii aan wax kale ka dhiganayna halkan ka bedelaya laakiin saasaynu u daynaynaa in ayaamaha fasaxu inoo yahay khamiista iyo jimcaha inta kale ay diraasatay. dabeetana iqlaaq baan leeyahay iska xidhaya. sidaa markaan aan kaga baxo diiwaangelinta magaca iskuulka ayaa waxaan soo furanaya daaqada ay ku qoran tahay almawaad. halkaas waa maadooyinka laga diiwaangeliyaa iyadoo isha la furayo. halkan waxa weeyaan galaasyadii. halkan waxa weeyaan qaacooyinkii. halkan waxa weeyaan macallimiintii. kaasaynu ku horeyn doonaa inagu oo darsigeenu uu ku saabsanaa inaynu ugu horreysiino diiwaangelinta kadib maadooyinka kadibna fasalada. ishaasaan furaya marka maadada diiwaangelinayo ismi maada iyo al-ikhtisaar. magaca maadada ayaan halkan ku qoraya iyadoo la soo gaabiyana halkan aan ku qoraya. si caadi aan ugu qoranayaa. haddaad doonto anigu halkan ayaan tusaale ahaan aan ku sii qortay jadwalkan aan sii samaystay markii hore koobi uun baan leeyahay. halkaa ayaan dabeetana dhigayaa sare. markan soo gaabiyana waxaan ku qorayaa markan soo gaabinayana fiqi baan ku qorayaa. waxaan leeyahay okay. haddana waan ku noqonayaa maado kale aan diiwaan gelinaya. halkay baan kasoo koobiyeysanaya اللغة العربية. كوبي بان leeyahay. halkii baan ku dejinayaa ku qorayaa. markan soo gaabiyana waxaan u qaadanayaa carabiya. haddana muwaafiq baan leeyahay. waayay asirin nabawiyana waan soo qaadanayaa. ishii soo fur halkaa inoogu qor
markan soo gaabiyana waxaan u qaadanayaa siiraan u qaadanaya. saddexdaa maado ayaan diiwaan geliyay, inta kale waad uga qiyaas qaadanaysaa. kadib haddana waxaanu u gudbanaa fusuusha iyo fasallada inaynu diiwaan gelino sidii si leeg inoo soo furiishii. aniga halkan iigu taalay fasalladii waxaan soo qaadanayaa kaa koobaad awal thanawi, halkanaan ku qorayaa. halkana waxaan usoo qaadanayaa waan ku qorayaa isagoo la gaabiyey, saasaan usoo qaatay, koobi baan leeyahay, halkaasaan dhigaya isagana. yacni awal thanawi marka la soo gaabiyana waxaan u qaadanayaa awal thanawi oo alif ah, oo hadday galaasyo doora yihiin awal thanawi alif ba saa hadday yihiin saasaan u qaadanaya. ka labaad baan haddana ku noqonaya, waa awal thanawi ba isna koobi baan leh, halkaygii baan ku qoranaa. waan soo furaanaa, waan soo furanaya heeshaa. dabeetana waxaan soo qaadanayaa awal thanawi baan haddana soo koobiyeysanaya. waxaan soo furanayaa barnaamijkii, halkaasaan dhigayaa. isagoo la soo gaabiyana waxaan u qaadanayaa soo koobiyeysaysna waaye. halkaasaan isna ku qorayaa, muwaafaq baan leeyahay. halkaa waxaa inoo soo qoray fusuushii awal thanawi oo alif iyo ba ah, laba galaas ah. inta kalena sidaa ayuun baan u qorayaa uun, iqlaaq baan leeyahay. darsigeena koowaad maanta halkaa ha inoogu ekaado.